kiisii toddobaad ee dalka dibaddiisa ugu baxo tan iyo markii xilka loo dhaariyey ayaa ku tegey dalka Masar isagoo kulamo badan la qaatay madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Kulankii ugu ballaarnaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu qaabilo oo maalintii shalay ka dhacay qasriga looga arrimiyo dalka Masar ayaa ahaa mid ay ka soo baxeen arrimo masiiriya oo saameyn ku yeelanaya gobolka Geeska Afrika. Madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa dhiggiisa Soomaaliya uga mahadnaqay booqashadiisa Qaahira. Siisi ayaa Soomaaliya ku sifeeyey dal Carabeed oo ku yaala bariga Afrika, isla jeerkaasna xidhiidh dhow la leh dalka Masar, isagoo oo sheegay in ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu weyn tahay arrinta webiga Niilka. Waxaana uu sheegay in labada madaxweyne isku afgarteen isla mar ahaantana isku aragti ka noqdeen arrinta webiga biyaha Niilka iyo weliba dhaamka Itoobiya halkaasi ka wado. Warkan oo ahaa kii ugu weynaa ee la isla soo hadal qaaday ayaa ah in Soomaaliya ay ka hor timid damaca Itoobiya ee ku aadan buuxinta iyo weliba adeegsiga biyo-xidhaanka gabagabada ku dhow. Tan oo ka dhigan in Muqdisho ay si toos ah ula safatay dhanka Masar iyo Suudaan oo iyagu ah laba dal oo khatar u arka biyo-xidhaanka laga sameeyo webiga dalalka badan isaga goosha ee Niilka. Waana tallaabo geed kale u jihaysay siyaasaddii Soomaaliya kula dhaqmi jirtay qadiyadda ka dhaxaysa Masar iyo Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo ayaa isagu xidhiidh dhow la lahaa dalka Itoobiya, taas oo meesha ka saartay xadhiggii u dhexeeyey Qaahire iyo Muqdisho. Taariikh ahaan Soomaaliya iyo Masar waa dalal soo wada maray sooyaal saaxiibtinimo oo aad u dheer, kaasi oo soo taxnaa tan iyo xilligii ay Masar ka baxday nidaamkii boqortooyada, isla mar ahaantana ay xilka qabteen askartii uburtuurka u ahaa Jamaal Cabdi Naasir. Labadan dal inkastoo aanay wadaagin dana aad u badan, haddana waa dalal jaal ku noqday arrinta Itoobiya, taasi oo labadooduba ay u arki jireen cadow ku soo maqan. Bogagga taariikhda waxaa ku xusan in Soomaaliya ay noqotay dalkii Carabeed ee ka tirsanaa Jaamacadda Carabta, kaasi oo aan xidhiidhka u jarin xukuumadda Masar kadib markii madaxweynihii jeerkaasi ee Maxamed Anwar Saadaat uu ku tegey booqasho magaalada Tel Aviv ee xarunta Israa'iil. Tallaabadaasi oo ahayd mid ka cadhaysiisay dalalkii ururka Jaamacadda Carabta oo iyagu Saadaat ku tilmaamay mid la heshiiyey xukuumad xoog ku haysata dhul Carabeed. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo xilligaasi talada hayay ayaa isagu diiday inuu xidhiidhka u jaro dalka Masar, isagoo oo ku dooday in Masar ay ahayd tii garab istaagtay xilligii uu dagaalka la galay Itoobiya. Kadib burburkii Soomaaliya, Masar waxay ahayd dalalkii sida badan u danaynayay in dib loo yegleelo dawlad Soomaaliyeed oo mar kale cagaha isku taagta, iyada oo marar badan shirar u qabatay hogaamiye kooxeedyadii iyo dhinacyadii isku hayay gudaha Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale Soomaaliya ka taageertay dhinaca waxbarashada, iyadoo ay dalkaasi wax ku soo barteen arday aad u badan oo haatan ku jira hoggaanka kala duwan ee deegaanada Soomaalida. Danaha ugu weyn ee ay Soomaaliya ka leedahay ayaa ah arrinta Itoobiya, iyadoo hadda u muuqata inay dhankaasi kaga adkaatay dhinacii Addis Ababa. Dad badan ayaa ku doodaya in ay wacnaan lahayd Xasan Sheekh oo isku wada labada dhinac, balse marka dhab ahaan loo eego sooyaalkii la soo maray, labada dacood ayaa ah kuwa aan la isku wadi karin, taas oo keenaysa in midkood la yeesho xidhiidh dhow. Wararka qaar ayaa sheegaya in Masar ay doonayso isla markaana ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala hadashay sidii ay uga mid noqon lahayd howlgalka ciidanka Midowga Afrika ee ATMIS loo yaqaan, taasi oo ah tallaabo kale oo xukuumadda Siisi ku doonayso inay ku ilaashato danaheeda gobolka Geeska Afrika. Maadaama oo dhiggeeda Itoobiya ku jirto ciidamada dalalka kala duwan ka socda ee Soomaaliya ku sugan, lama oga intani ay noqon doonto mid hirgasha iyo mid halkaasi ku saqiirta.